بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaan Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amayeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah oo fiyo inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhibatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa guusha ummadda Soomaaliyeed ay ka gaartay kamid noqoshada ama xubinka noqoshada golaha qaramada midoobay golaha amniga ee qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ku guuleysatay inay kamid noqoto xubnaha aan joogtada ahayn ee 10ka ah. Soomaaliya waan u hambalyeeyaa meel ay joogtaba ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo. waa guul runtii ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. guushan waxaa ka soo shaqeeyay waxaan arkayaa dad hadallo iyo buuq iyo wadwada oo leh maxaa dawladii hore loo sheegayaa oo ka horeysay dawladdan, bal kelmadan ku jirtay xil wareejintii May 2022 markii labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farmaajo ay la kala wareegayeen xilka. bal kilibkan yar dhageysta Farmaajo ka hadlaya xil wareejintiisii inuu application-ka buuxiyay ayna kamid tahay dhaxal reebka uu ummadda Soomaaliyeed uga tagayo. bal ila dhageysta. waxaan kale oo aan kugu wareejiyay codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno Security Council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadaan u fariisano kursigaas 2025 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tagay ummadda Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo 51 sano ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin kamid ah hal mar kaliya. sida maqlaysaan madaxweynuhu markii uu ku wareejinayay madaxweynaha cusub xilka waxyaabihii uu ku wareejiyay oo dhamaystirka u baahnaa ayay kamid ahayd. waxaa kamid ahaa deyn cafiskii oo gabagaba ahaa oo stage 3 marayay 3 stage buu maraakii ugu dambeeyay ku jiray ayna ka dhimanayd muddo ka yar 7 bilood inuu ku qabsoomo ku dhamaado oo isagana la dhamaystiray. waxaa kamid ahaa cunaqabataynta hubka oo isagana sanad ka dhimanaa isna la dhamaystiray oo hirgalay. waxaa kamid ahaa in aan xubin ka noqono golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo isaguna maanta dhamaystirmay. marka way ku fiicnayd dawladda sharaf bay u ahayd iyaday ku fiicnayd kuna sharaf qadarin bayna ka heli lahayd. runtii waxyaabaha qaarkood waxaa fiican inay madaxtooyada ka timaado inay ammaanto shaqadii lasoo qabtay iyaga ka hor. dawladnimadu waa qor isu dhiib, waa file furan oo la dhamaystirayo. مثلا EAC أنا معارض بان كواي EAC لكن هو مشروع صوب إنه حلقي شريف شيخ شريف مركي ودمايستر ما إن لغو أمانو أو لا شيغو دولديه كوري إني لو كل هايين أما أي سهم كل هايين أما يجو أبليكيشن كحريين وبلعبين سو ماركيس ويكفي عند مركا هذا كان دليرادان meelaha ka qeylqeylinaysa way jabi lahaayeen way sheekadoodu way jabi lahayd kala qaybinta iyo dadka kala finaaqinta iyo dawladnimada oo loo fahamsay qofku waa yimaada waana tagaa oo ugu horeeyo madaxweynaheeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraheeda maamulka dawladda oo ay qayb ka yihiin ama ugu horeeyaan uguna muhiimsan yihiin wasaaradda arrimaha dibadda. waxaan gaar ahaan ugu hambalyeeyaa teamka New York inoo jooga ee Soomaalida ee dadaalka badan ku jira ee muddada campaign-ka kaga jiraysay codkan aan maanta helnay u taxqiijin lahaayeen. team Abuukar Baalle guuleysta mar kastoo aad shaqo qabataan waad ka soo dhalaashaan. maasha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin barakeeyo dhammaantiin. Abuukar iyo inta la shaqeysa oo dhan ilaa secretary ilaa biyatooni inta u dhaxaysa iyo madaxweynahooda iyo inta u dhaxaysa iyagana oo hambalyeena. waxaan kaloo hambalyeynaya dawladii hore oo shaqada qabatay oo iyadoo application ka xiraysay iyo wasaaradda arrimaha dibadda hore. waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin. intaa kadib position kan waa position qiimo leh
macnuu leeyahay waa lagaa campaign garaynaya waa lagu baryayaa cod baa lagaa baryayaa sax meeshaan rag baa iska maamusha shanta joogtada ah ayaa awoodda ugu badan iskale oo viitada leh laakiin waa lagu imaanayaa cod baa lagaa rabaa waa lagu qalqaalsanayaa waxbaa lagu weydiisanayaa waxbaad kala gadanaysaan oo isdhaafsanaysaan adiguna waxbaa rabtaa wixii aad rabtay qof culus baa tahay maanta oo cod ku leh golaha amniguna waa golaha ugu sarreeya ee qaramada midoobay golaha wixii ka soo baxa ayaa general assemblygu ku shaqeeya ururada ka hooseeya sida African Union iyo kuwa kasii hooseeyo IGAD iyo kulligood waxay hoos tagaan oo ku shaqeeyaan golaha amniga waxa ka soo baxa waxaan rabaa madaxweynaha halkan aan fariin uga diro aan ku iraado hambalyo marka koowaad marka labaad qodob kursigaanu responsibility buu la imaanaya waxay jira wadamo iyo qadiyado dadka ummadaha caalamka xorta ahi ay ilaaliyaan oo ay leeyihiin qadiyadda Falastiin baa kamid ah arrimo muhiima jira oo dadka muslimiinta ahi ay leeyihiin qadiyadahaas iyaga yaanan ku ceeboobin shimbiri maalin bay dab qaaday maalintiina buulka hooyadeeda gubtayay ina ku noqon yaan lagu ceeboobin iyadoo ama dan shakhsi laga eegayo ama aragti gaaban wax lagu dhisayo ama pressure iyo cadaadis ka yimi qolo magaranaysaa kore loo jilcayo yaan ummadaha caalamka layna ku dirin sumcad xunna uusan magacaasi inoo soo jiidin waa inaan magac ku kasbanaa oo aan sharaf ku kasbanaa oo aan qadiyad ku yeelanaa caalamka ummadda Soomaaliyeed waxaa loo yaqaan qadiyadda Falastiin inay meel adag ka taagan tahay meesha ayaan hoos looga dhicin waxaa laynoo yaqaanaa dad Afrikaan oo qabla inaan nahay oo madax bannaan oo aan u dhihin ama aan u jilcin in ay magaranaysaa pressure iyo cadaadis la saaray ama yani aysan ganacsato noqon yani marka waxaan insha Allah rajeynaya madaxweyne xilkaas aan qabanay yaan lala ku ceebayn si fiican oo ka fiirsi leh oo qarannimo ah oo dalka dantiisa laga eegayo oo aragti fog wax lagu dhisayo iyo berri maxaynu yeeli doonaa inaanan bahalkaa ku ceeboobin oo aanan ku fashilmin ayaan rabaa madaxweyne intaasan kaa codsanayna haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed sharaf bay ahaan lahayd inaad ku dartid ammaanta iyo magaranaysaa creditka ay siisay dowladdii kaa horreysay say iyaguba kuu siiyeen guushii maxkamadda caalamiga aan kaga guulaysanay dalka Kenya badda ay nagu qabsatay dowladdaada sida loo xusay oo loo yiri iyadaa soo bilowday oo shaqo ka soo qabatay iyadoo shaqadii ugu badnayd laga qabtay xilligii Farmaajo oo dagaalkii ugu badnaa lagu galay xilligii Farmaajo oo xataa xiriirkii uu kala go'ay labada wadan arrintaa darteed iyo cadaadis iyo weerar meelo badan oo Mareykanka kamid yahay ka socday ma ujeeda loo dhib badan lagala kulmay haddana waa lagu xusay adigana waxay ahayd sharaftu maanta inaad xustid shalay inaad xustid deen cafiskii doraad inaad xustid magaranaysaa cunaqabatayntii mar walba oo shaqo la soo qabtay aad dhammaystirtid waad ku mahadsan tahay qoladii kaa horreysana way mahadsan yihiin inaad tiraahid waxba kuguma waxna ku yeeli mayso waxaan kaloo rabaa madaxweyne qodobkayga igu dambeeyo ah vision cusub adiguna kuwa noo bilow sidaasoo kale ah oo waxyaabaha muhiimka ah oo aan berri dhammaystirno si lagu xuso markaad tagtid oo ay legacy kugu noqoto noo bilow oo noo daafur waxaad tidhahdaa projecteeli mashruuc hebel baan bilaabay oo qarannimo ah oo Soomaali wax ku ool ah oo caalamka aan kula falgalno hawshaasaan inoo bilaabay markaad xilka wareejinaysid berri ku darso intaasaan oranayaa hambalyo again mar labaad Soomaaliyey meelaad joogtaanba waa sharaf iyo karaamo waxaa iga haraya in aniga la iga campaign garaysto oo markaa aniga qof ben holder iga ahaado golaha ammaanka qaramada midoobay maanta Soomaaliya iyadaa geysanaysa faylasheeda iska daa inay geysatay iyadaa dad u qaadaysa faylashooda